madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kulankaasi oo aad u muhiim ah waxa uu isugu yeeray madax dhaqameedka ganacsatada iyo culimada dalka waxaana kulankaasi la xiriiray sidii uu dardaaran iyo baraarujin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu u fari lahaa mas'uuliyiintaasi taasi oo nuxurkeedu ahaa inay qayb ka noqdaan in dalka ay ka qabsanto doorasho xor iyo xalaal ah oo ay ku kala calaf qaadaan axsaabta qaranka ee ku tartamaya doorashada ay naga xigto maalmaha koobani isagoo ugu horreyn tilmaamay in ay waajib tahay in alle looga mahadnaqo waxyaabaha inoo qabsoomay iyo nabadda iyo deganaanshaha aynu ku laanooleyno taasina aynu u baahan nahay in aynu inagoo hareeraha ka taagan dhinacyada ka taagnaano waxaana madaxweynaha hadaladiisii ka mid ahaa duca qabayaal milkiye maamuus weyn bay tahay inaan maanta idinku marti qaado madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland sida aad la ka warhaysaan muddo ka yar 2 toddobaad ayaa inaga xigta qabsoomidii doorashada madaxtooyada dalka ugu horeyn waxaan waajib inagu ah inaynu eebbaheena weyn u mahad celino mar labaad waxaan jecelahay inaan idinka mahad celiyo kaalinta weyn ee markasta aad kaga jirtaan gudaha horumarka wadajirka ummadda iyo adkeynta amniga qaranka sidoo kale waxaan idinku bogaadinayaa waayeelkiina ka kooban madax dhaqameed culimo ganacsato doorka lama ilaawaanka ah aad ka soo qaadateen taabagelinta doorashooyinka dalka ka qaaday sanadihii 2003 2005 2010 2012 mudanayaal ujeedada aan kulankan idinku yeelay wuxuu daaran yahay inaan idinku gubaabiyo inagala shaqaysaan wacyigelinta iyo midnimada bulshada xilligan xasaasiga ah waxaa loo baahan yahay inaynu iska kaashanno yaraynta xanafta iyo xiisadaha ka dhalan kara xafiltanka siyaasadda waxaa odayaal ahaan dhammaanteen inala gudboon inaynu ka hortagno in ummadda la dhex dhigo cunfi ciilqab iyo cadaawad siyaasadeed taasoo horseedi karta qoqob iyo kala qaabsanaan raad xunna ku reebi karta mustaqbalka noloshooda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu tilmaamay in ummad ahaan ay maanta xil inaga saaran yahay iyo mas'uuliyad wadareed in aynaan kaga gudbi karin xaaladan intoocsi tafaraaruq iyo talaxumo qaran gob ahina waxa uu kaga gudbaabay duruufaha adag ee la xidhiidha doorashooyinka dulqaad deganaansho danta guud oo laga hormariyo gaar ahaaneed bisayn iskaashi midnimo wadajir waxaan duca qabayaal aan idinku dardaarayaa buuli inaynu dhinac uga soo wadajeysano cid kasta oo abuuraysa xasilooni darro iyo xiisad colaadeed waxaana waajib ku ah muwaadiniinta Soomaaliland iyo waayeelka maanta aan ku qaabilay buuli qasriga madaxtooyada inay gacan siiyaan ciidamada qaranka ee ku howlan adkeynta nabadgelyada iyo sugidda amniga qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri mudanayaal aniga oo munaasabadan ka faa'iideysanaya waxaan leeyahay xisbiyada qaranka dalkani wuxuu ku nabad iyo caana maalay habdhaqan ku dhisan tulaale tala wadaag tawfiiq iyo isu tanaasul murti Soomaaliyeed ayaa tiraahdaa caado la go'ay cala alle leedahay sidaa darteed waxaa waajib ku ah musharaxiinta u tartamaya hawsha hoggaanka dalka inay dhowraan xurmada iyo xuquuqda ay leeyihiin dadka ay codkooda doonayaan sidoo kale waxaan idinku adkaynayaa inaad u hoggaansantaan go'aanka cugdida doorashooyinka xeelalka shuruucda iyo nidaamka doorashada u dejisan galad ee baale kuwana Soomaaliland baale allahan tubta toosan haynugu hanuuniyo allahan bashbash iyo barwaaqo baradeenna ha ka yeelo allahan boggeena iyo beelkeena barcadaysu mariyo dhinacyadii ka qayb galay kulankaasi ee ganacsatada culimo awdiinka iyo madax dhaqameedka ayaa geestooda soo dhaweeyay taladaasi iyo hoggaan tusaalahaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo jeediyay halka geesta kalena xaaji cabdi xuseen cabdi waraabe wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed iyo wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamuud Xaashi oo iyaguna kulankaasi ka hadlay ay geestooda tilmaameen mas'uuliyadda ka saaran dhinacyada kala duwan ee bulshada
habsami u qabsoomidda doorashada iyo doorka looga baahan yahay in qayb kasta oo ka mid ah bulshada haddii ay tahay axsaabta qaranka xukuumadda iyo komishanka doorashooyinka oo isagu ah garsoorkii ay soo hoosgelayeen dhammaanba tartanka axsaabtaasi iyagu u loolamaya talada waddanka iyo waajibaadka saaran. salaadiinta waxaan leeyahay idinku madaxweynaha goor u walbati waxaan leedahay u dadaala sharafkiina. nin baan halkaa joogto ayaad madaxweyne ka tahay u dadaala hadday nabadgelyo doorashadu inoogu dhacdo dee wada madaxweyneynu kulligeen dadaala nabadgelyada intaa doorashadu inaga dhacayso iyo dabadeed iyo horteedba nabadgelyadaynu dowlad ku nahay oo dad ku nahay ha lagu dadaalaa nabadgelyada nafiba halkayso iyo nafiba shaqaday hayso تعالى إنه دمنا كلافه دبعتنا نقهر من الله إلهي سبحانه نجيس مريو أمننا إلهي نوح وشيء تسنو يتسنينا وحرنتي أرلا هون مدحوينها يد محوها يوغاندي سيو محاك تلدي سيدا أينو دقرار عنه ومدة واجب كوين يقصوا وذي شيء سترينا عد كستا أوفت قرالاسة إيو كلاقو قبوطة دور شدنا والله مينا سد حسبي والله ميا مودينين السومال لنا وحي xaq u leeyihiin nin waliba inuu codeeyo halkuu u doonto uu doorto ama dambido musharaxiintu waxay xaq u leeyihiin inay dadka cod weydiistaan xaq uma laha inay dadka dhexdhigaan colaad iyo cadaawad iyo ciilqab kala qaybin iyo wax la mid ah doorashooyin baa la soo maray natiijadana marka guddiga garsoorka gacanta ku haysa ay soo saarto nin waliba waa ku qasban yahay أحمد سيلاي وأحمد حوينها ما أنت عم ببحيا سديت العد بو كجتجي لودي يكون يصدح لي فروا وين بارو قد جيا حير بي ومطنوطة مشرحين تبدل يسا يهو جاميها بدل جامياش ما أنت ترتميا إن وكتشرو كبدل دون إلى هاي أوجي هاي حير كسوي هلا وحوي هلا نيك دور شذا لجهلا إنهم بليو حيركو قيب سيء guddiga garsooraysa maaha madaxweynaha iyo xukuumadda waxaaba dee laga yaabaa annaga in dhinac lala xisaabiyo anagu garsoor kama nihin axmed siilaayo iyo kaaliyaashiisu garsoorayaal doorashada kama aha doorashada waxaa ka garsooraya guddiga doorashooyinka qaranka dhammaan waxaa la xidhiidho dhan iyagaa maamulaya shaqo kuma lihin annagu amniga qaranka waxaa maamula madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan guddiga doorashooyinka qaranka iyo cid kale midna ma maamusho madaxweynaha qaranku ummadda waa hogaamiyaheedii markuu maamulayo howlaha qaranka ummadda waa u dhexe si cadaalad iyo sinaan leh buu ku maamulayaa far waaweyn baanu iyadana ku dhigaynaa